بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواي channel كنا فرحية وكشين أصحاب تقاليقها مركلي مقال عسب هدادا فرنه سنه هلب كسان أدب ما شاء الله وضمبينتنا وجدان باريس هلب لغشي كيني كرين قادة فاميلكا لنا عقل محاوايا بسباس هادا قص هادا عن بسباس آدو معان بدن لغشي كيني كرين وحارجينا قادة اني آديني أنفع دونتو كفايديسي وعان marka waxaan ku bilaabanayaa hilibka ayaan rabaa inaan kariyo hilibka qaabka ugu macaan u sameeysan kartid foornadan uga maarantay hadii aadan foorna haysanin marka waxaan soo qaatay 2 xabo oo basal ah basashii waan soo jarjarayaa basashii markaan soo jarjaro 2 xabo kadib waxaan soo qaaday saliid digsiyan dabka saaray saliid ayaan ku shubay kadib waxaan ku soo darayaa basashii marka hilibka kariyo kadib ayaa waxaan rabaa inaan kariyo bariiska insha Allah bariiskan isticmaalayo waxa waay Mahmoud Rice waa basmatic bariiska waxaan la dhigay biyo saacado ka hor bariiska basmatic marka la dhigtid biyo waxa waay dhaadheer ku noqonaya insha Allah inkastoo bariiska basmatic ay kaliyihiin kuwa gaagaaban jiro laakiin midka Mahmoud ay ku qoran tahay dhaadheer waay sida maxaan ku radaa biyaaniga camal ayuu noqonayaa basashii waxaa rabaa wax yar inay bislaato kadib ayaan kusoo laaban doonaa insha Allah dhinaca kale waxaa noo yaala 1 kiilo oo hilib ari ah waa garab oo saas waaweynka loo soo jarjaray saas ayuu u jarjaran yahay intaas kadib basashii markay noo bislaato hilibka ayaan ku gureynaa hilibka hadii aad rabtid dhaqso inuu ku bislaado marka hore waa inaad shiishid ama intuu biyo ka keenay aad sugaysaa saliidaas iyo basashaas iyo hilibka isku soo shiilayaa ugu horeen hadii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanaa subscribe inaad taabatid kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba oo soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah hadii aad gambaleelka taabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo dhamaantiin waxaan idin ka codsanaa muuqaalka hadii idin soo gaarna like u badisaan hilibkii dab caadi ku karnaysaa waxaa la rabaa inuu shiilmo kisto miikaan sida u dhaxmarnaaya daboolan saaraya kadib waa ku soo laaban doonaa insha Allah daboolku ma xiraayo waxaan rabaa kisto inuu biyo yar keeno digsigan waxa waa hilibka dhaqso ku karnaya hadii aad rabtid xitaa inaad bariis ku karisid biyaha qiyaasta aad ku karinayso waa laga yareeyaa qiyaasta caadiga hadii aad biyihiis aad ku karisid bariiska digsigan waxa waa isaga dhan bariisku wuxuu ka dhigayaa bariis bajaq uu ka dhigayaa looma baahna soo waa laga yareeyaa intaas kadib waxaan ku darayaa xawaaji burbur filfil hayl iyo qorfe hilibka maraqiis waxaan rabaa inaan bariis ku kariyo insha Allah intan waxa waa cusbo barbarooniga shiidan xawaaji burbur aan soo shiiday iyo huruud intaas ayaan ku daray kadib biyo karkara ayaan ku dareysaa hilibkana sidiisa markaas u shiishid biyo qabow lagu ma daro biyo karkara oo kulul lagu daraa intaas kadib qaadadan dhaxmarinaya 1 saac ayuu dabka saarnaan doonaa insha Allah si uu si fiican ugu bislaado daboolkan dab ku siinaya 1 saac kadib waa ku soo laaban doonaa digsigan waxaa la rabaa hilibka inuu 40 daqiiqo uu ku kala daadiyo hilibka laakiin daboolka kore oo madowga ka dhumo fahanteen saas darteed uu daahaya 1 saac kadib ayaan ku soo laabtay 1 saac kadib waxaan sameeynayaa waxaan ka bixinayaa hilibku waa uu noo bislaaday hilibkan ka saaraya sida caadiga ee 40 daqiiqo ayaa la rabaa hilibka inuu si fiican u kariyo laakiin waxa waay daboolkii kore dabool yar oo madow ah jiro oo kor ku dhagan kiya ka dhumo fahanteen saas darteed uu daahaya dhaqso ma karinaayo hilibkii oo dhan ayaan ka saaray sidii muuqata intaas kadib waxaa sameynaysaa maraqa waa inaa miirtid waayo waxa ku jiro filfil haylkii wixii dhan ku jiro waxaan soo qaadanayaa digsi kale waad miiraysaa hilibka markaad miirtid oo ujeedaan qashinkii iyo wixii dhan ka soo haraayo maraqan waxaan ku iraahdaa caraf ayuu noqonayaa ma sha Allah maraq aad u caraf badan ayuu noqon doonaa waxaan sugaynaa biyaha intay ka soo burayaan maraqa xawaajiyadiisa wixii dhan way wataan uma baahna waxyaabo kale ku dardartid laakiin cusbada haday ku yar tahay ayaad ku kordhin kartaa intaas kadib bariiska waa ujeedaan saacado ka hor ayaan biyo karkaraya la dhigay hadda waxaan sameynayaa bariiska dhan ku soo gadinaya insha Allah bariiskana markaad biyo la dhigtid waxa waa qiyaastii biyaha aad ku karinayso waa inaad ka yareysid waa ujeedaan biyo badan ma lahan micnaha maraq badan ma lahan intaas kadib daboolkan dhab ku siinaya markuu diyaar noqdo ayaan ku soo laabanayna insha Allah bariiska xawaajigiis iyo wixiis dhan wuu leeyahay
cusbadiisa tijaabi haday ku yartaa cusbada ku kordhi intaas kadib waxaan rabaa basbaaska inaan sameeyo mar badan ay soo weydiisan farxi basbaaska u samaysataa basbaaska waxaa waaye lama karinayo ma fahanteen waxaan ku riday blenderka yaanyo barbarooni toon basbaas intaan ay isku shiidaysaa si fiican markaad si fiican u soo shiidid kadib waxaad sameynaysaa weelka ku shubanaysaa basbaaska haddii aad bartid waxaan ku dhahay liin dhanaan ku miiray kadib waxaan ku darayaa cusbo kadib waxaan ku darayaa saliid zeytuun qasab ma ahan macsaraa ku darsan kartaa saliid zeytuunka ku darsan kartaa waad ka dhaafi kartaa intaas kadib waad walaaqaysaa si fiican cuntada aad ku cuntid waxaan ku iraadaa waa isoo xasuusanaysaa ku dhimo fahanteen maasha allah basbaas aad u fudud aadna u macaan badan waaye laga sheekeeni karin basbaaska saasoo waxaan ku iraadaa diyaar ku yahay maasha allah inta kale weela afka daboola afka saaraysaa frinjeerka iska gashanaysaa basbaaskiisaas ayuu kusoo baxay quruxda badan maasha allah bariiskiina waa diyaar inkastoo qoqoyaan uu leeyahay daboolkan dhab ku siinayaa dabkan u yareynayaa markuu diyaar noqdo oo qoqoyaanka uu ka baxo bariiska ayaan kusoo laaban doonaa insha allah warqadaasaan saas ugu daboolaya kadibna daboolkiisaan dhab ku siinayaa dhinaca kale waxaan rabaa hilibka inaan sameeyo hilibku wuu karsan yahay laakiin kastoo inaan gaduudiyaan rabaa waxaa soo qaatay shabaqaas oo foornada waxaad saaraysaa dabkana gaaska u yareey markaad u yareysid kadib saas u dul saaraysaa waxyar markuu hoos ka gaduuto dhinaca kale aad u gadgadinaysaa hilibka saas ayaad ku karsan kartaa maasha allah aad ku gaduudin kartaa dabkana ha u dheereyn haddaad dabka ku badisid waxaa waaye uu kaa gubanayaa intaas kadib hadda waxaa rabaa inaan kariyo lowskeeni caadiga ahaa lowska caadiga ahaa waaye marka hore ugu diyaarsan yahay oo karsan yahay laakiin saliidda markaa ku yara shiishid dhadhan macaan ayuu yeelanayaa maasha allah wuuna jilcayaa macnaha jiileec uu noqonayaa waa lagu cuni karaa bariiskii waa ujeedaan bariis furfur oo xabadba meelaan ku dhahay maasha allah laga sheekeeni karin kadib waxaan kusoo dadaadinayaa lowskii markaan ku dadaadiyo kadibna timirtaas ayaan saa u sarsaarayaa timirta iyo bariiska iyo lowska iyo hilibka maasha allah tabaarakallah haddaad isku cuntid maxaan ku iraadaa iyaa waad ka sheekeynaysaan ku dhahay bariis iyo timir weliba isku cuntay dhadhankiisa lagama sheekeyn karo dhinaca kaleetan waxaan soo saaray basbaaskii qado qurux badan isku dheelitiran laga sheekeeni karin insha allah waxaan rajeynaa inaad ka faa'iideen muuqaalkan like noo saara oo sii share garaysa saaxiibo badan idinka camalaan u helno hilibkuna ujeedaan siduu u kala baxay lagama sheekeyn karo waxaa idinkaga tagaa kheyr iyo caafimaad please like and share mac salaam